السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa Siyaad Cali mar kale kala hadlaya ama rabo inuu ka hadlo teknolojiyada iyo meesha wax marayaan. Teknolojiyada adduunka maantay markii laga hadlayo waxaa weeye guud ahaan sidaan wada ognahay waa internetka xukuma. Sababtoo internet ka hor dee teknolojiyadu waxay iska ahayd isgaarsiinta bas sooma telefoon iyo TV iyo maaragtay mobile phoneska iyo xataa markaa weli si maaragtay ma ahayn wax oo caalamka oo dhan meel walba gaaro laakiin internetku soo usoo baxay oo weliba caan u noqday 90yadii wixii loo gaaro teknolojiyada isbeddel weyn baa ku dhacay oo maanta shirkada ugu taajirsan adduunka markaad eegto ama ugu wax soo saarka badan ugu maxaa la yidhaahdaa saamaynta badan adduunka kulli waxay abuurmeen sagaashanaadkii wixii ka dambeeyey 94 iyo wixii ka dambeeyey bay abuurmeen Google oo kale for example wuxuu soo baxay ama 98 buu soo baxay wixii intaa ka dambeeyana caan buu noqday Facebook 2004 buu biloomay 2005 wixii loo gaaray buu markaa caan noqday asna oo macnihii uu soo gaaray Yurub iyo meelahan kale kadibna dee maanta meeshuu marayay wuxuu yahay waa garanayna waxaan kaloo hadda cusub sida TikTok oo kale iyaguna waa hadda dhawaan bay ahaayeen 2019 bay soo caan baxeen oo yimaadeen YouTube oo hadda laga yaabana ka daawanayso videogan 2007 wixii loo gaaray asaguna ahaa wixii ka dambeeyey marka kulli waxaad garanaysaa inay maaragtay waqti yar gudahiis ay ku gaareen meelahaas ama baaxadda ay ku yeesheen oo internetkana sida caadi ahaan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay inventionkii ama wax bini aadan ikhtiraco oo soo saaro oo kii ugu saamaynta badnaa adduunka muddo yar gudahood ku gaaray teknolojiyooyinkii hore oo la soo saari jiray hadday ahayd baabuur ama diyaarado ama matooro ama waxaas oo dhan 100 sano ay qaadan jireen inay maaragtay caalamka gaaraan ama saameyntoodu meel walba laga dareemo laakiin internetku muddo yar wax yar waan maaragtay hadda qolada teknolojiyada ama teknolojiyada aan ka hadlaynaa waa internetkan waxa ku dul dhisan waxay ku leeyihiin 5 sano lama saadaalin karo teknolojiyada internetka ama meesha wax marayaan meesha ay gaari karto ama waxa dhici kara iska daa 20 sano iyo 10 sano iyo waxaas waxaad ka garanaysaa dee taariikhda hadda aan soo tilmaannay waa kan Google oo kale shal uu ahaa YouTube shal uu ahaa TikTok hadduu ahaa waa kan Facebook waa kan WhatsApp waan bay ahay iyadana 2009 meelahaas aan malaynaya 11kii marka waxaan oo dhan oon hadda arkayno oo dhan waa midda hadda ugu badan ee adduunku ka hadlo oo sida artificial intelligence oo kale ama AI waxaa la yidhaahdaa iyaduna dee waa soo jirtay oo soo socotay ilaa warshadihii iyo xilligii automationka markii la gaarayay in la automate gareeyo ama wax soo saarka productionka warshadaha oo robotska ka shaqaynayay oo kale iyo mashiinadii hawsha iskood u qabanayay halkaas ka soo bilaabatay kontonaadkii lixdamaadkii afartameeyadii qaar xataa ka hor xataa waa la sheegaa laakiin tan hadda laga hadlayo waa systemskan sida bini aadanka oo kale qofka caadiga ah shakhsiga caadiga ah uu maaragtay la falgelayo oo wax weydiinayo oo u jawaabayo oo maaragtay ChatGPT oo kale iyo wax la midka ah oo ama systemska isticmaalaysid ama meel kastoo hadda caalamka service ama adeeg ka dalbanaysid ama ticket goosanaysid ama wax samaynaysid oo dhan kulli waxaa lagu lamaaniyey ama lagu integrate gareeyey AI artificial intelligence baa ku jira waxyaalo badan kuu fududaynaya oo isla markiiba maaragtay ku soo helaya baraha bulshada way isticmaalayeen muddo isticmaalayeen oo sida Facebook iyo maaragtay YouTube iyo kulli iyo Google iyo laakiin hadda waxay noqotay macnaheedu wax weyn oo saameynteedu ay meel walba gaartay oo wadamada adduunkuna ay ku tartamayaan wadamada ugu maalgelinta badan artificial intelligence markii la yiraahdo waa China iyo Mareykanka Yurub baa saddex markii la sugiyo Yurub kullina waxay ku tartamayaan kii noqon lahaa number 1 oo artificial intelligence
dhinac kasta dhinac dhaqaale dhinac difaac dhinac weerar dhinac siyaasadeed dhinac bulsho u control lahaa oo gacanta ugu hayn lahaa ama u maaliyad uga samayn lahaa Chinesku saa ogtihiin internetka iyagu ma iqtiraacin xataa samayntiisii hore qayb kama ay ahayn internetka maraykanka ayaa dowladda maraykanka ayaa samaysay kadib markii 57 1957 ay nimankan ruushku ama Soviet Unionku marka ay cirka u direen dayax gacmeedkii Sputnik ayaa maraykanku 58 wuxuu yiri waa inaan maaragtay helnaa technology ama hab kale oo isgaarsiineed oo aan kaga hortagno maadaama cirkii iyo xaggii satellite-ka noloka hormaray loo labay ku jireen NATO iyo Warsaw laakiin NATO markii loo leeyahay Maraykan waayo macnaha waxa kale oo dhan waa xulufaysi marka halkaas ka soo bilowday 91 baana la fasaxay internetka anu hadda arkayno Soomaali haddaan inaga dalkeen markuu burburay ayaa la internetku uu noqday wax la ogolaado in commercial si ganacsi adduunyada shirkadaha iyo ay suuq geyn karaan oo adduunka loo fasaxay China marka maanta waa number 1 xagga adeegsiga artificial intelligence ama guud ahaan technology iyada ugu horeysa China hadda maanta markaad gasho ilaa maanta ka soo baxayso waa lagula socdaa mobilkaaga appska isticmaalaysid meesha marayso dariiqa marayso kulli waa lagula socdaa waxaas oo dhan dawladdu ogta sababtuna waxa weeye waa adeegsiga maartay waxaan la yiraahdo facial recognition garashada wajiga oo sida kaamirooyinka iyo meel walba ku dhijin iyo applicationada wax lagu iibsado ama mobilka asidato kulli isla markiiba waa iyo locked waa lagu garanaya maanta soo gashay maanta bacda loo socda qof kastoo Chinese iyo cid kastoo timaada baabuurtan iskooda soo wada self driving cars China number 1 way already way shaqeeyaan tagaasi iyo maarta tareemo iyo baa ku socda oo caadi loo kireystaa marka wax kasta oo xagga wax iibsiga iyo maartay iyada warkeeda iska daa gameka iyo waxa la ciyaaro iyo kulli waxa weeye waa number 1 bay ku yihiin macnaheedu cid la tartamayo ama Mareykanku mar walba uu wajiga ku hayo uu leeyahay maartay waa inaan ka hortagnaa oo ka sii khatarsanaaynaa oo hatta markay faaniyaan way xagga aqoonta anaga ka wali ka khatarsan bay kulii laakiin xagga isticmaalka applicationka wixii in la hirgeliyo la isticmaalo oo wax lagu qabsado China waa number 1 Europe iyaduna saddex noqonaysa guud ahaan markii Europe la soo geeyay German Francis English waxa soo dhan marka soo geeyay Europe waxa ku leeyahay Ruushku waa sawna waa sareeya wadankan Yuhuudda Israel khatar bay ku tahay waliba kuwan wax jaajuso oo dhan sistemada wax lagu jaajuso oo dhan ama kambaniyada hadda cyber security ka shaqeeya waa jaajusnimo wax kale ma yani yes cyber security waa field weyn oo muhiim ah oo kambaniyada adduunka oo dhan baa ku jira oo dawladihii baa ku jira wasaaradda sheegay China oo kale ciidanka militariga China People's Army ciidanka Chinese-ka oo militariga qaybo badan waxay leeyihiin high tech Mareykanku waa leeyahay Yuhuudda waa leedahay Ruushku waa leeyahay wadamada lahayn Yurub oo dhan waa leedahay sirdoonka iyo sidoomada adduunkaas oo dhan wadamadaas oo dhan way isticmaalaan Turkiga wadamada Islaamka hadda ugu fiican buu ku jiraa xagga isaguna technology drones kan waxaan arkaysaa iswada oo wax dilaya oo maartay hadda ku soo caan baxeen waxay kamid tahay artificial intelligence ama guud ahaan teknolojiyada maartay horumarka ay ka gaarsan yihiin Iran khatar bay ku tahay waliba xagga cyber offensive xagga cyberka wax lagu weeraro waxna la iskaga celiyo sababtoo ah maartay way ogyihiin cadawgoodu inuu dhinaca ku horeeyo marka iyaguna waa inay isdhisaan marka Soomaali oo kale hadda u soo noqdo oo iraahdo inaga xayay marka maxaan haynaa hadda fiiri waxaan ku garanaynaa ama ku garanaysaa qofka Soomaaliga inaan waxba hayn iskuulka ilmaha wareegtaan fiiri Soomaaliga ka hadlaya gudaheeda marka joogto computer lab malay 40 computer 30 computer 50 computer ma yaalin dhowrka boqol arday ay basic IT ku bartaan ma yaalo inta badan boqolkiiba 99 ma yaalo
أيه واي wax qaali ah kombiyuutarku ma qaali ma iskuulaadka ku yaala gobolkaas oo dhan ama magaaladaas oo dhan hadday isu tagaan oo kun kombiyuutar dalbadaan waa lacag yar buu ugu imaanaya boqol dollar baa laga yaabaa inuu ugu yimaado hal kombiyuutar iskuul walba imise wax ku tari karaan marka imise dhalinyaradaas macnii spark ku jira imaginationkooda ama maaragtay waxooda teknolojiyadan saan sheegayna waxa weeye internetku waa structure waa infrastructure wax lagu dul dhiso waxa ku dul dhisayna waa softwareka qofka bartay iyo codinga wadda kambaniyan ka hadlayno hadda ma aanan xusin Elon Musk oo kale ma aanan xusin oo ninkaas caanka ah oo SpaceX iyo Starlink-gan hadda satellite ka bixinaya iyo kambaniga hore PayPal asaaskiisii lahaa waxyaala badan teknolojiga kusoo horiyey kambanigan space maxaa la yidhahdaa Tesla oo baabuurtan korontada ku shaqeeya bilaabay oo ku guuleystay 12 jir markuu ahaaba ayuu sameynayay application iyo software sameeyay oo ku bartay maaragtay kombiyuutarka wuxuu ka bartay South African way asalkiisa oo isna Canadian baa kadibna Mareykanku dee 90 soo galay dhig waa dhalasho Mareykan oo qaatay waa American laga sii South Africa 12 jir buu ku sameeyay application oo game ugu horeeyay ku iibi uu ku sameeyay ku iibi Mark Zuckerberg 12 jir buu ahaa markuu baray waxaasoo iskuulka ku barteen marka carruurteena in school lab way soo jirin Soomaaliya oo dhan oo aan basic IT ama technology-da computer science wax yar aan laga arday loo just wax in loo taataabto bas aduu u daar un markaad u daarto computerkaas oo wax yar tusto ilmaha waxa kan way ka helayaan isla markiiba markay ka helaanna waalidku wuxuu leeyahay laptopki internetkaas adduunka iska hadda Soomaaliya internetku waa wuu noo yaal laakiin lagama faa'iideysto ayuu markaa ku xiranaya online-kii buu helayaa waxa yar oo koorsooyin free oo maaragtay library-ga weyn adduunka oo dhan oo internetka ayuu markaa ka faa'iideysanaya kadibna beri wuxuu noqonayaa Elon Musk ama maaragtay dadkii wax develop gareyn lahaa dhinaca kasta oo dalkeena dhalinyaradu hadday bartaan waxaan teknolojiyadan bartaan internetka ama programming iyo codinga caalamka oo dhan la shaqaysan kara iyagoo dalkooda jooga dakhli badan ba dalka soo gelaya dhinacii security-ga iyo amnigana way qayb bay ka qaadan lahayn waxaan waa inaad iska difaacdaa marka Soomaaliya haddaan nahay waa ma joogno meesha hadda ka hadlayno waxaan hadda ka hadlayno artificial intelligence iyo waxa hadda sheegay tartamada adduunka socda iyo waxaas oo dhan waxa weeye dee halkaas aad garanaysaa moogta waa iska faannaa waa ogahay internetka ugu raqiisan baan haynaa so internet what dadoo dhan waxay ciyaarayaan game bay ku jiraan ama mobilkaas ay ku mashquulsan yihiin waxay ku mashquulsan yaa sameeyay wiilal lamid ah sameeyay oo maartay bahalki iyaga bar marka cilmiga iskuulka ugu bulow kadibna iyaga sii soconaya iskuulku waa just meesha wax laga dee imaginationka ilmahan potentialka uu leeyahay lama garan karo ardayga beri dhakhtarka noqonaya engineerka noqonaya oo computer science-ka noqonaya waa iskuulka meeshu ka imanaya asalka hore soo ma baadi inta keenadu iska noqdaa dhakhtar maya iskuul buu tagaa halkaas markaa xisaabta ay ku bartaa science-ka iyo biology whatever markaasuu xiiseeyaa oo ku noqdaa arday fiican oo aad meel sare ka gaaray computerka ma saas oo kale asagaaba ka horeeya because science-ki wuxuu baran lahaa xataa internet online buu ka helay oo iskuulaadka hadday heli lahaayeen internet ama kontonkan computer xataa xisaabta iyo waxyaalaha hadda lagu liito dalkeena macallimiintu halkaas ay ardada uga furi karaan oo akoono oo free ah khan academy oo kale iyo boqolaal kale jira dhiil caadi la geli karaan waxay dhihi karaan Soomaaliya nahay waa wadan soo koraya please noo fura maaragtay qaybna siiya for free waan la siin lahaa marka shaashad weyn halkaa ugu dhaji ardaydu halkaas dhag waxooda halkaas ay ka baran lahaayeen iyagaas bari lahaa macallinku just waa kala soo gal lahaa okay go potentialka muhiimadda waxaan uu leeyahay waa wax weyn waay dhinacii waxbarashada science-kan hadda loo la'yahay laababka loo la'yahay isagoo virtual la samayn kara isagoo online ardaydu halkaas ka baran karaan oo ku arki karaan oo samayn karaan xataa si maaragtay waxaan virtual yahay macnii si online ku samayn karaan tijaabooyinkii biology-ga chemistry-ga wixii dhan physics-kii whatever marka siyaasaday u baahan tahay qolyaha iskuulaadka iska leh inay waxaan fahansan yihiin dowladdu inay fahansan tahay waalidku inuu fahansan yahay ganacsatadu inay fahansan yihiin laakiin kulli waxaad moodaa inay maaragtay inay faqiirka yihiin xaggaas fahanka marka
intaasaan kusoo koobaya maanta inaan maaragtay intaa yar aan idinla wadaago waana wadi doonaa insha allah aadba wixii markaa teknolojiyada ku saabsan ama wararkeeda